waana midaan anagu ka xunnahay haddaanu xigtadiisii nahay haddaanu nahay muxuu ahayto dadka uu magacaabay ee reer nugaaleed oo uu ku tilmaamay nugaal intii la qabsaday tukaraq waa nugaal custom bay ahayd waxa Somaliland baa qabsatay inuu Somaliland ku taageero qabsashadeeda kalimadihiisii markii aanu muxuu ahayto dhageysanay aad baan uga xunnahay waxa kale labaynaya nugaal hal siyaasi ma laha Cabdiraxmaan kaliya siyaasi ma aha siyaasiyiin badan bay leedahay makrofanka maalin kasta uu taagan yahay oo isagu isa siinaayo inuu kaligiis yahay taasna waanu ka digaynaa isagana wuu uga digaynaa bulshada reer nugaaleedna wuu uga digaynaa يعني سياسي بدن بيلاده ووضع تشانيسا ماشي مناسبة أو الله أركو أي contribution كينو الصعدة بانكو ده أميننا السمان لنا هاي نبضنا لنا هاي أقويهم بان لنا هاي أنت أسمر كيسوت بعد يشعبك يدتك ولي بحكم كهذا ما أنت هيا والنمبر 1 إن يو كهذا لا ولو دايو لكن هذا وحنا كيني أرنتاس نقال جار كلا فقوقي وعبد الرحمن وكدغاي wax isagu leeyahay si gaar ah u leeyahay qofku wuxuu gaar u leeyahay wax jeebkiisa ku jira laakiin nugaal oo dhan ma qaadi karo marka koobaad waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga xariiqo kuna baaqo dadka Soomaaliyeed oo dhan nabad waarta baan wada deeqada inaan nabad isugu baaqno nabad ku wada noolaano taabashada uu sida adag u ataagay madaxweynaha dawladda Puntland maanta ka taliya arinta waxay nala ahayd inay aad u qaldan tahay waxay ku qaldanayd waa marka koobaade waqtiga lagu soo aadiyo munaasib ma aha haday tahay xiisada dalka ka taagan munaasib uma ahayn haday tahay madaxweyne federaalka oo dalka booqanaya uma ahayn wax munaasaba haday tahay protocolka iyo standardka dawladnimo iyo madaxda lagu yaqaano uma ahayn wax meesha qabta abiilka madaxweynuhu uu soo jeediyo reer nugaaleed oo yaan dagaal idin galin iyo wax noocaasa horta Puntland anagu haddaanu nahay dadka reer Puntland marka koobaad muslim baana mar labaadkana Soomaali baanu mar saddexaadkana reer Puntland baanu nahay kulligaya manihin reer mudug iyo reer nugaaleed iyo reer bari iyo reer sool luqadaasi naguma haboona madaxweyne nin soo noqdana kuma haboona nin caaqilana kuma haboona meeshaasi hadalkaasina meesha ma qaban marka illa yiraahdo reer nugaaleed oo yaan dagaal idin galin hadal sax ma aha haddii xataa la oran lahaa reer Puntland waa war la qaadan karo midda madaxweynaha lagu yirid waan ka raali gelinaynaa midda annaga naloo ku yeeray annagu reer Puntland iyo reer Soomaaliyeed iyo muslim baan wax la qaybsanaynaa ma yeelayno arrinkaasna naguma haboona haddaanu nahay dadka magaca loogu yeeray arrintaas 100% baanu ka soo horjeednaa tan saddexaad oo madaxweynaha iyo xisaabtankiisana meeshii munaasibkeeda ahayd baa la sugaya oo lagu wada xisaabtamaya